dooran lahayd iskool aad aado fiidiyoyadan oo taxana ahaa oo 6 fiidiyoo ka kooban ayaa fiidiyowga hore ayaa waxaan uga soo hadalnay sababta ay tahay inaad iskool aado ama waxbarashada sare aad u doonato fiidiyowgan ku xiga oo kii labaad ah ayaa wuxuu ka turjumayay meelaha aad wax ka baran karayso sida community college-ka iyo maartay university-ga 4-year college-ka loo yaqaano haddaba waxaan filayaa oo rajeynayaa inaad maartay ka faa'iideysatay fiidiyowgan aan duubay iyo kuwii hore aan u duubay kuwa gadaal aan ka duubi doonaba inay ka saacideeyaan ama hadda aan ku galo fiidiyowga aan sameynayo maanta ayaa waxaan ku qaadaa dhigi doonaa waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin community college-ka iyo university-ga ama 4-year college waxa loo yaqaano haddaan ku bilaabo marka u horeyso community college-ka ama marka qaarkoodna loo yaqaano city college ama technical college ayaa wuxuu yahay jaamacad ku siinayso 2 sano labadaas sano oo aad ku qaadan karayso degree-ga u qalma 2 sano oo loo yaqaan associate degree-ga ayaa wuxuu ka saacidi karayaa inaad shaqo maartay localka aad ku hesho ama meelaha qaarkood aad ku aado oo shaqo aad kaga raadsato waxyaalaha aad baratay dhanka kale marka eegno university-ga ayaa wuxuu yahay degree-yada uu bixiyo ayaa waxay kamid yihiin bachelor degree-ga ama masters degree-ga ama maartay PhD-ga kaasoo ka weyn marmarka qaarkoodna ardayda qaarkood ay uga soo transfer gareystaan ama ay ku soo bedeshaan jaamacadan weyn ama 4-year college-ka loo yaqaano ayaa u sahli karayso ardayga markuu jaamacadaas ka baxo inuu qaato degree-yada loo yaqaano sidaan hor soo sheegnay bachelor degree-ga ama masters-ka ama PhD-ga ayaa u sahli karayso shaqooyin baaxadooda aad u kala dheertay inuu ku helo hadda u sii kurgalo waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin ama advantage-ka ama disadvantage-ka waxyaalaha loo yaqaano ama faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ee u kala dhaxayso labada college ama labada jaamacadood ayaa waxaan ku bilaabaya marka u horeyso community college-ka faa'iidooyinka badan oo community college-ka leeyahay ayaa waxay yihiin adigoo ka qaadan karaya 2 sano ama associate degree-ga hore aan u soo sheegnay oo ku shaqaysan karaya isla markiiba adigoo kaga shaqaysanaya meelaha aad degan tahay magaalooyinka aad degan tahay waxa kale oo kamid ah faa'iidooyinka badankiisa uu leeyahay community college-ka in uu maartay qaadan karayo arday baaxadooda aad u kala dheer tahay ardaydaas waxa kamid ah haddaad ahayd qof high school-ka markuu dhiganayay grade-kiisa uusan aad u fiicneen kadibna ka qashdhacay ama niyadiisa ay ka maartay Kenways inaad university aado ayaa waxaad soo gali karaysaa community college-ka adigoo qaadanaya imtixaankaas oo placement test loo yaqaano oo aad markaa qaadato meesha u qalanto ama fasalka u qalanto lagu dhigayo waxaa also kamid ah marka tan xigto oo labaad ardayda uu qaato community college-ka ardayda ma artaan SAT-ga ama ACT-da loo yaqaano imtixaanada lagu qaato high school-ka marka junior ama senior-ka aad tahay aadan qofkaas tuusan qaadan community college-ka aadna wuxuu ku ogolaan karaa inaad soo gasho adigoo imtixaankiisa placement test qaadan karaayo waxa kale oo kamid ah dadka ardayda uu qaato ardayda maartay ayagoo dad waaweyn ah soo ogaaday in maartay faa'iidooyinka jaamacadda ka soo qalin jabinta jaamacadda ay leedahay ogaaday in maartay galaan ayay maartay u sahli karaysaa community college-ka in maartay si wanaagsan ay u galaan oo aad u fudud iyadoo maartay university-ga lagu dhibi lahaa waxa faa'iidooyinkaas kale oo maartay community college-ka leeyahay waxa kamid ah sidoo kale tuition-ka ama maartay lacagta loo yaqaan tuition-ka oo ay qaataan community iskoolaadka ayaa aad iyo aad uga yar maartay markii university-ga ama 4-year college-ka loo fiiriyo tuition-kaas oo maartay qof hadaa tahay maartay iska danyar maartay tuition-ka oo laga dhimi karayo oo lacagtiisa aad u yartahay community college marka aadayso ayaa ku sahli karaya inaa maartay si fudud ku bilowdo community college-ka wax walba oo advantage leh ama maartay faa'iidooyin leh qasaare ayuu leeyahay haddana waxaan ka hadli doonaa qasaarooyinka community college-ka aaditaankiisa uu leeyahay qasaarahaas oo marka ugu horeysa aan ku bilaabayo qodobka ugu koobaad ayaa marka aad doonayso inaad maartay university ama maartay jaamacad weyn aad u bedelato ayaa maartay dhibaato ardayda badankood ay ka soo gaartaa credit-yada ama maartay iskuulka fasalada ay ka qaateen transfer-kooga ama maartay bedelashadooda ayaa dhibaatada ugu weyn ay tahay community college-ka aaditaankiisa marka waxaa loo baahan yahay inaad la tashato counselor ama maartay la taliye oo jaamacadda aad u bedelan doonto uu leeyahay waqtiyada aad ku jirto community college-ka haddaba waan ka soo hadalnay community college-ka marka waxaan doonayaa hadda inaan ka sii hadlo university-ga siday tahay iyo aaditaanka iyo qaabka maartay advantage-ka iyo disadvantage-ka ama qasaaraha iyo faa'iidooyinka iyo university-ga leedahay sidaan hor soo sheegay university-ga waxay leedahay 2 qaybood labada qaybood oo loo kala yaqaan undergraduate ama maartay qaybta hoose iyo graduate level oo qaybta hoose oo laga qaato bachelor degree-ga iyo graduate level ama qaybta sare oo laga qaato masters degree-ga iyo PhD-ga
kuwaasoo ku kala sahli karaya shaqooyin kala duwan inaad ku kala qaadato. kadib 4 sano markaa ka dhamaysay university-ga ama 2 sano oo ku darsatay haddaad kasoo transfer ahayd oo kasoo bedelatay community college-ka ayaa markaa dhamaysay waxaa lagu abaalmarinayaa shahaado loo yaqaan bachelor's degree-ga adigoo shahaadadaas ama ku shaqaysan karayo ama haddaad doonayso post graduate aad aadi karayso waxa loo yaqaan ama master's degree ama PhD haddaad doonayso inaad sii diyaariso shahaadadaas oo maartay ku sahli oo aan la socono sida maartay cilmi baarista badankeed ay sameysay ka fiican kana wanaagsan isla markaana lacag ka badan aad ku qaadan karayso associate degree-ga markaad haysatay oo community college-ka ka soo qaadatay hadda shaqo gali lahayd ayaa maartay ku sahli karayso shaqo inaad si sahlan ugu hesho oo dhaqso badan faa'iidooyinka badan oo maartay uu leeyahay university-ga aytaankeedana oo kale waxaa kamid ah in maartay university-ga ay tahay worldwide oo dunida dhan meel walba oo laga soo aado oo maartay aad la kulmi karayso arday ka imaatay China ama Brazil ama meelo kale oo kala duwan adduunyada dacaladeeda ayaa maartay ku sahli karaysa inaad network ardaydaas la sameeyso oo aad maartay la tashato maartay aad fiiriso waxyaalaha iyo qaababkay u kala fikiraan taasoo ku sahli karaysa inaad maartay networking ka sameysto qof Japan joogo oo kaleeto haddaba maadaama aan ka soo hadalna advantage-ka ama maartay faa'iidada uu university-ga leeyahay haddaan mid ama laba ka sheego disadvantage-ka ama qasaarooyinka uu university-ga leeyahay ayaa waxaa ka mid ah university-ga inuu maartay lacagtiisa ay aad u badan tahay tuition-ka lacagta loo yaqaano oo dadka badankood dan yar markay iska yihiin ee aad ugu sahlan tahay marka u horeysa 2 sano oo ugu horeysa inay ka soo qaataan community college-ka taas oo u sahli karaysa in isla markaana ay ku soo wareegaan 2 sano ugu dambeysay bachelor degree-gooda university-ga u sahli karaysa in maartay ay lacagti maartay ku spend garan lahayn ama ay ku maartay siin lahayn university-ga inay aad u yaraato haddaba qasaaraha labaad oo aan doonayo inaan ka hadlo oo ku saabsan university-ga ayaa wuxuu yahay university-da badankood ayaa waxay bixiyaan wax la yiraahdo theory oo fasalada aad dhiganaysa badankood waa theory ahaan ayaad u dhiganaysaa oo maanta wixii qoraal weeyaan oo maartay badankood ma bixiyaan maartay wax practical ah haddaba waxaad u baahnaan doontaa inaad maartay internship wax loo yaqaan ama maartay co-ops inaad sameyso markaad university ku jirto si ay kugu sahlanaato inaad shaqo hesho dadka badankood ayaa waxay sameeyaan samarada inay maartay qaataan fasalo ay maartay si ay dhaqso u graduate gareeyaan taas inkastoo ay wanaagsan tahay ay fiican tahay inaad dhaqso uga baxdo haddana isla markaas waxa kaaga sii fiican inaad maartay qaadato internships ama co-ops si ay maartay kugu sahlanaato markaad iskoolka ka baxdo si aad shaqo u hesho haddaba waan ka soo hadalnay community college-ka faa'iidooyinka iyo qasaaraha uu leeyahay university-gana sidoo kaleeto haddaba marka su-aasheena waxay tahay oo inaad isweydiiso ay tahay keebaa ii fiican oo ii wanaagsan inaan aado su-aashaas oo qof kale uusan ka turjumi karaynin oon adiga aan ka ahayn ayaa waxaan maartay talooyinka aan ku siinayo maartay ay ahaanayaan inaad marka u horeysa aad isku fiiriso differenceska ama maartay waxyaalaha u dhaxeeyo university-ga iyo community college-ka aad aadayso haddaba waxa kaliya oo aan kugu caawin karayo ayaa wuxuu yahay inaad website-ka hoos ku qoran marka hadda fiiriso ayaa wuxuu yahay website government-ga ay sameysay oo maartay locator loo yaqaan college-da iyo university-ga dunida maartay wadanka Mareykanka kaliya ku kala yaalo ayaad markaad website-kaas aado ayaad fiirin karaysaa jaamacadaha kugu dhow ama maartay aad gelin karaysaa state-kaaga ama meesha aad joogto adigoo maartay aad ka heli karayo jaamacadaha kugu dhow dhamaantood qof adiga ka yaqaano nafsadaada ma jiro oo adiga ka ahayn marka waxaan kugula talin lahaa inaad gees u baxdood meel ka fariisato ka fikirto waxyaalaha aan ka soo hadalnay si ay kugu sahlanaato maartay meelaha aad wax ka baran lahayd فيديوهاdan oo taxana oo 6 ka kooban ayaan videogi koobaad ayaan waxaan uga soo hadlay sababta ay tahay ama maartay sababta aad u aadayso ama waxbarashada u kordhinayso ama university aad u aado sababta ay tahay videogan oo kii ku xigay oo kii labaad ayaan waxaan uga soo hadlay community college-ka iyo university-ga waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin iyo faa'iidooyinka iyo qasaaraha ay kala leeyihiin waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysatay oo maartay aan ku fududeeyay maartay sida aad ku dooran lahayd jaamacad aad aado iyo maartay meel aad wax ka barato videogan aan maanta ku duubay fadlan hadaa talooyin iyo tusaalooyin aad hayso ama aad su'aalo ka qabto barnaamijyadan aan meeshan ku wado ama Somalis for Change guud ahaanba fadlan naga soo xiriir web page-keena somalisforchange.com adigoo ku dhufanaya feedback-gaas oo maartay aad aan maartay u fiirino runtii aan xooga saaro maartay inaan qofka uga soo jawaabo haduu su'aal qabo ayaa maartay su'aalaha qaarkood waxaan sameyn doonaa su'aalaha qaarkood inaan maartay video ka duubo oo soo geliyo si ay qof walba uu uga soo faa'iideysto su'aalaha uu soo qortay
fadlan ha moogaan somalisforchange.com waadna ku mahadsan tahay videogan aad daawatay caawa iyo fiidiyoyada kale too dhammaan aan maartay Somalis for Change ama YouTube-ka aan geliyay mahadsanid